Xaaraanguutaha weyn ee lagu sheego agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Maxamed Yuusuf Ismaaciil islamarkaasina dambaaba wasaaradda warfaafinta Somaliland waxa uu xilalkii ugu badnaa ee warfaafinta u magacaabay shaqaalaha ay isku haybta yihiin oo uu u kala dhiibay xilalkani hoos ku xusan agaasimaha waaxda idaacadaha, agaasime ku-xigeenka shaqaalaha, agaasime ku-xigeenka qorshaynta, agaasime ku-xigeenka waaxda ICT-ga, xisaabiyaha guud ee wasaaradda warfaafinta, madaxa xafiiska wararka, tifatiraha guud ee wakaaladda wararka, madaxa xafiiska xidhiidhka gobollada, madaxa xafiiska gaadiidka, madaxa xafiiska xidhiidhka dadweynaha, madaxa farsamada ee idaacadda Radio Hargeysa, madaxa technical support-ka ee waaxda ICT-ga. waa markii ugu horreysay ebid ee wasaaradda warfaafinta Somaliland aad ka dheehan karayso qaabka ay u shaqaynayso inaanay ahayn qaabkii uu qaranku u shaqaynayay ama ay u shaqayn lahayd hay'ad ka tirsan qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. Baadhista iyo dabagalka wakaaladda Samakaab intani oo keliya kuma koobna. Daawadayaal, waxaanu dhowaan idiin soo bandhigi doonaa xaqiiqooyin kale oo la xidhiidha dulmiga uu shaqaalaha ku hayo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland.